shacabka ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada la filayo inay ka qabsoonto dalka Soomaaliya taasi oo lagu soo dooran doono madaxweynaha sida warbixinta warkaasi uu ku soo diray wariyahayaga Axmed Cabdisalaan Khaliif. shacabka ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan doorashada ka dhacaysa dalka 8 February oo ku beegan maalinta Arbacada ah. shacabka oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa intooda badan waxa ay sheegeen inay u baahan yihiin hogaamiye samata bixin kara dalka. horta doorashada waxay maraysaa meel xasaasiya oo aad u culus waana aad u faraxsanahay inay si wanaagsan ugu dhamaato inuu soo gabagaboodo fikir ahaanteedana doorashada waxa uu arkaa inay ku socoto si nidaam ah aad u soo dhaweynaa guddiga doorashada oo rag macquul ah ay ku jiraan iyo qaybaha kale ee anshaxa u qaabilsan doorashada waana soo dhaweynaynaa meel fiican waa noo maraysaa fikraddeedan ka hadana waxaan u rajeynayaa insha Allah in aan helno madax noo sii wada xeerka ay marayso dowladda Soomaaliya iyo waddanka Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله حسين شوريه كترسن dhalinyarada Cadaado ee ku sugan ruantii waxa xiiso weyn nagu haya waxaan galeynaa maalmaha laba maalmood nagu soo socota waa aad iyo xasaas u tahay waxaan galeynaa sidaan la socono doorashadii Soomaaliya ruantii maalmihii hadda soo dhaafay waxaan soo dhageysanay ama soo daawanay khudbadihii musharaxiinta kala gedisan ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha noqon doona maanta oo taariikhdu 6 taana waxaan hadda xarunteeda ganacsiga aan ku daawanayay su'aalo weydiintii musharaxiinta musharaxa u taagan oo qaban doona xilka Soomaaliya waxaan dareemayaa in meel xasaasiya ay marayso insha Allah taala maalinta Arbacada foodo nagu soo haysana waxaan rajaynaynaa inay maalin aad nagu weyn inay tahay ruantii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay nagta u taagayaan ama ay dhaqaaqeeda la socdaan waxaa dareemaysaa xarunta ganacsiga aan joogo in dad fara badan ay joogaan oo isha ku hayaan dhaqaaqa siyaasadeed ee ka socda Muqdisho marka waxaan leenahay insha Allah taala madaxweyne inta Soomaalida samaha jecel ay doonayso in uu noqdo mid sababtan bixiya ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirto in Ilaahay maalinta Arbacada uu noo soo saaro. magacaygu Xasan Maxamed doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya la filayo maalinta ay bishu marayso 8 February oo laba maalin oo kaliya naga xigto in ay ka dhacdo gudaha dalkeena runtii waa arrin aan aad u soo dhaweynayno haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug runtii doorashadaani waxaan filaynaa inay noqoto mid aad uga bedelan doorashooyinkii hore u soo maray dalka waa doorashadii labaad ee dalka ka dhacda sidoo kale waxaa jira in labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay imika ku jiraan dhalinyaro badan iyo sidoo kale siyaasiyiin la filayo inay kuwii hore u jiray wax badan ay dhaamaan isla markaasina aan ka rajeynayno waddanka inay maaragtay ka sabata bixiyaan xaaladaha adag ee uu ku jiro. dhanka kale ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado waxay aad u soo dhaweeyeen go'aankii ay maxkamadda cadaaladda ee ICJ ka gaartay inay qaado dacwadda badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. waxaan ka qabaa go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waa mid aad loo soo dhaweeyo runtii maxkamadda waxaa maaragtay dacwado kala duwan u taga dowladaha caalamka oo kiisaskii ugu dambeeyay ee la aqoonsan yahay waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka iyo wadamada ka mid yihiin Ukraine oo isku haysta badda waa maxkamad international oo caalamka dhan wada dacwado runtii hadalka hordhac ah ay ka soo yeeray inay maaragtay qaadi doonto doodda aad baan ugu rajaynahay Soomaaliya wax aan ku faraxno ayaa laga sheegay oo maxkamaddu waxay tiri waan qaadaynaa dacwad horta wax walbo anaga tilaabo ama mid naga maqan soo bixinayo waxa waa soo dhaweynaa Soomaali ahaan ama muwaadin ahaan waa soo dhaweynaa ICJ-na waa ku maadsan yihiin in dacwadina noo qaadaan awal waxa la rabay in si qoto gooni tartiib loo shiro oo Soomaali wixii markaas ka shiro ama arinta badda ka shiro tartiib loo xaliyo ee doonayeen laakiin maadaama hadda la yiri si public ah oo maxkamadda arrimaha noocaas xaliso u qaabilsan maadaama ay gashay intii arrin maxkamadda lagu xalinayo waxa waaye dad banaankaas dadka ku kala baxna waaye waan ku faraxsanahay barnaamijka noocaas ee soo jeedisay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa 8 February ee nagu soo aadan ayaa waxaa la filayaa in dalka ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee dalka waxaana u taagan 23 musharax oo la filayo mid ka mid ah inuu ku guuleysto madaxweynimada dalka Soomaaliya. Axmed Cabdisalaan Khaliif, Somali Cable TV magaalada Cadaado.